Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Mudane Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed iyo wafdi uu hogaaminayo galinkii dambe ee shalay ka ambabaxay magaalada Muqdisho ayaa xalay gaaray magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya waxaana si weyn loogu soo dhaweeyay gudaha garoonka diyuuradaha ee magaalada Addis Ababa. Wafdiga Ra'iisul Wasaaraha ayaa waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beyle, wasiirka wasaaradda maaliyadda Xuseen Cabdi Xalane, wasiirka warfaafinta Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow, wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada iyo wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga. Socdaalka uu Ra'iisul Wasaaraha ku joogo Addis Ababa ayaa waxa uu qayb ka yahay booqasho rasmi ah oo uu ku marayo dalalka Itoobiya iyo Djibouti, ayuu yiri Ridwaan Xaaji Cabdiweli, afhayeenka xukuumadda Soomaaliya. sidii xiriirka iyo wada shaqaynta u dhaxeeya dalalka Soomaaliya iyo Djibouti loo sii xoojin lahaa looga dhigi lahaa kuwo miragal ah. Socdaalkan aan ku soo gaarnay dalka Itoobiya waa mid aan ku xoojinayno xiriirka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Itoobiya, waxaana iska kaashan doonaa arrimo ay ka mid yihiin amniga, siyaasadda iyo dhaqaalaha, ayuu yiri Ra'iisul Wasaare Cabdiweli Sheekh oo warbaahinta kula hadlay gudaha garoonka airport-ka ee magaalada Addis Ababa. Booqashadan Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya uu ku tagay dalka Itoobiya ayaa noqonaysa tii ugu horeysay ee uu ku tago wadan dibadda ka ah Soomaaliya tan iyo markii loo magacaabay xilka Ra'iisul Wasaarenimo, waxaana ay ku soo aadaysaa xilli 3 toddobaad ka hor ciidamada Itoobiya ee ku sugnaa gudaha Soomaaliya ay si rasmi ah uga mid noqdeen howlgalka nabad ilaalinta Soomaaliya ee AMISOM. Maxamed Bilegeele, Somsat, Muqdisho.